السلام عليكم. السلام عليكم. كسر هذا برنامج كاني شكو with Miss مريم. أصحابي ما أنت وحين برندنا ميرا هي خضار. ميرا خضار. Mira means fruits. Khudar means vegetables. Hai arday Miss Maryam bana, hai arday Miss Maribana, hai ubuhi wadankana, hai ubuhi wadankana, hai ubuhi wadankan kalkuhe. Harfahan akhrina, ha ha. Midabadan barana, ha ha. Tiroinkan tirina, ha ha. Tiroinkan tirina, ha ha. Sheekoyinkan dhegaysana, ha ha. Sheekoyinkan dhegaysana, ha hay. Arday Miss Maryam bana, hay arday Miss Maryam bana, hay arday Miss Maribana, hay ubuhi wadankana, hay ubuhi wadankana, hay ubuhi wadankan kalkuhe. Arday Miss Maryam bana, hay arday Miss Maryam bana, hay arday Miss Maribana, hay ubuhi wadankana, hay ubuhi wad. waxaan rabaa inaan maanta halkan ka salaamo asxaabtayda. Assalamu alaikum ahlan and happy early birthday. I heard your birthday is coming up. Dalasha Waan. She's going to be 3 years old and her brother Zayed is almost 2. Assalamu alaikum Tasneem and Ayub from all the way in Nairobi, Kenya. Assalamu alaikum. Ayub is 2 and Tasneem is 4. Hi guys. Assalamu alaikum Arabella, Alina and Amana, who are 6, 4 and 11 months old from London, the UK. Wow. Assalamu alaikum Zainab and Zubair. Zainab and Zubair are from Toronto, Canada, and they are 6 and 2 years old. Assalamu alaikum Alia. Welcome. Alia is from Uganda and she is 3 years old. Welcome. Assalamu alaikum to Zaki and Aziza, and they are from Austin, Texas. Woohoo, Texas. Zaki is 6 and Aziza is only 1. I also want to give a shout out to Shema, Hudayfa, and Sahid. They are 4, 2, and 5 months old, watching from St. Cloud, Minnesota. Hi friends. Assalamu alaikum Rosie and Ubah, or is it Rosie Ubah, who are 1 years old, and Asli, who is only 2 months old, tuning in from Melbourne, Australia. Wow. I always wanted to visit Australia. Assalamu alaikum Salma. Salma is 1.5 years old and she's watching from Burnsville, Minnesota. Hi friend. Assalamu alaikum Mustafa and Ahmed from Toronto, Canada. Wow, we have a lot of friends from Toronto. I love Toronto. They are 2.5 years old and 8 months old. I'm so happy to have you with us, friends. Assalamu alaikum, Jamil. Jamil is one from Germany. Hi, Jamil. Hey, friends, don't worry. If you didn't hear your name in this episode, I have not forgotten about you. Miss Maryam has a long list of friends she needs to shout out. So don't think I forgot you. I would never forget you. You are special. It's okay. I'm going to add you in the next video. Okay? Hayadaha. Okay. Now let's go enjoy our show. Yay! Midab kamanta wa
midabkani maxaa la dhahaa? Oranji. Oranji. Iga daba dhaha. Can you repeat after me? Oranji. That's how you say orange in Somali. Oranji. Oranji. Numberka maanta waa 5. 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5. Iga daba dhaha. 5. 5 is 5. صح. 1 2 3 4 5 5 tufaax. waxbaa iga maqan. waxbaa iga maqan. waxbaa iga maqan means I'm missing something. I can't find it anywhere. waxaa iga lumay qadadaydii. qadadaydii ayaa iga lumay. I can't find my lunch anywhere. talow xagee ayaan kaga soo tegay qadadaydii? Where could I have left it? haddaan xasuustay. waxaan u malaynayaa inaan gurigaygii kaga soo tegay. gurigaygii ayaan kaga soo tegay. I think I left it in my house. asxaabey, miyaad i caawin kartaan? Will you help me? When you need help, waxaa la dhahaa i caawi. i caawi. When you're asking somebody for help, you say i caawi. Or if you're talking to more than one person, you say i caawiya. This is the sign for help me. I caawi. I caawi. Will you help me? You will? Ina Maria, qadadaydii ayaan soo raadinaynaa. Haye diyaar ma tihiin? 1 2 3 bad. gurigaygii ayaan joognaa. gurigaygii ayaan joognaa. This is my house. gurigaygii. guri. guri means home. gurigaygii ayaan joognaa. qolka fadhiga. waxaynu taagannahay qolkayga fadhiga. kani waa qolka fadhiga. The living room. In Somali, for living room, waxaa la dhahaa qolka fadhiga. ila dhaha qolka fadhiga. haye mar kale. qolka fadhiga. صح. living room is qolka fadhiga. Good job. haye bal ila raadiya. qadadaydii laga yaaba inay qolka fadhiga aan kaga tegay. aan raadino. haye aan raadino qadadaydii. Raadi means to look for something. Raadi ama ila raadiya. Help me look. ma laga yaabaa inay qadadaydii ku jirto kursiga hoostiisa. kursi. kursi. kursi means chair. ma laga yaabaa inay qadadaydii ku jirto kursiga hoostiisa. balan eegno. maya kuma jirto kursiga hoostiisa. maya kuma jirto. bal aan ka soo raadino musqusha. Ina Maria. Wow,
hadda waxaan joognaa musqusha. hadda waxaan joognaa musqusha ama suuli. waxaad dhihi kartaan musqusha ama suuli. haa, musqusha. musqusha. balila raadiya. aaway qadadaydii. kuma jirto. ballan ka soo raadino qolka jiifka. ina mariya. kani waa qolka jiifka. qolka jiifka. This is the bedroom. In Somali waxaa la dhahaa qolka jiifka. balila raadiya. aaway qadadaydii. barkinta kor ma u qaadnaa. haye. kuma jirto. asxaabay aan aadno jikada. jikada. 1 2 3. waxaan joognaa jikada. tani waa jikadayda. say jikada. jikada. ila dhaha jikada. jikada. haye ku soo celi mar kale. jikada. jikada. Yes. In Somali, we say jikada for kitchen. Kitchen, we say jikada. jikada. صح. haye ila raadiya. aaway qadadaydii. aaway qadadaydii. Will you help me find my lunch? my qado? waad i caawinaysaan soo maaha? Thank you. haye. yaa maxaad dhahdeen? ma idin maqlo. codkeena kor u qaada. aaway qadadaydii. halkee? halkaas. maxaggaas? miyaad u jeedaan? waa qadadaydii. waa taas. waad ii hesheen qadadaydii. aad iyo aadaad u mahadsan tihiin asxaabay. wow, qadadaydii. waan helnay. waad ku mahadsan tihiin caruuray inaad ii hesheen qadadaydii. Should we open it? fur means open. fur. fur. yeah, fur means open. haye aynu isla furno. bal maxaa ku jira? aan furno. waxaad dhahdaan fur. waxaan rabaa inaad dhahdaan fur. fur. daha fur. fur. one more time. fur. one more time. fur. we open. aan eegno waxaa ku jira. qaado. qaado. fargeeto. 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 karooto. karooto. qajaar. qajaar. canab. 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 bariis iyo digaag. allah asxaabay
Cuntooyinkii way isku dhex qasmeen. Cuntooyinkii baa isku dhex qasmay. My food is all mixed up. Look, ila eega. Will you help me sort my fruits and veggies? Galley, is it miro mise khudar? Waa khudar. Anab. Anab waa miro. Nice job. Haye. Waxaa ku xiga karoto. Karoto, is it khudar mise miro? Waa khudar. Liin macaan waa miro. Haye, khajaar. Khajaar waa khudar. صح. Haye, pepperoni. Pepperoni waa khudar. Shaqo wanaagsan. Haye, avocado. Avocado waa miro. Who knew that one? Bispas. Bispas waa khudar. Nice job. Haye, asalato. Asalato waa khudar. Maxaa ku xiga? Qare. Qare waa, you know that one. Waa miro. Almost tricked you there. Haye, strawberry. Strawberry waa sheega miro. Nice job. Almost done. Liin dhanaan. Liin dhanaan waa miro. Moos. Moos. Moos waa miro. Haye asxaabteyda, intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeenii Sheekoy Sheeko with Miss Maryam. Waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo barwaaqo. Haye, hadda waxaa la gaaray waqtigii heesta. Meela qaadi kartaan? Will you sing with me? You will? Haye, yaa heesta garanaya? Haye, yaa heesta xafid? Haye, ila qaada. Haye asxaabay, ila qaada. 1 2 3. Nabadgelyo asxaabteyda, waa waqtigii maca salaamada. Farxad ayaan wadaagnay, mar kale ayaan is arki doonaa. Haye, mar kale ku soo celiya. One more time. Haye, 1 2 3 bilow. Nabadgelyo asxaabteyda, waa waqtigii maca salaamada. Farxad ayaan wadaagnay, mar kale ayaan is arki doonaa. nabadgelyo asxaabteyda. Asalaamu calaykum.